haddaad buufis dareento iyo haddaad buuq dareento, haddaad seexan weydiyo hadday cadhadu kaa badato. warwarka iyo walbahaarkaasi waa laba nooc. nooc marka horeba waxa keena wax biological ah, wuxuu ka iman karaa jidhkiisoo khalal u shaqeeyey ama heredity dhaxaltooyo hore ha noqdo oo family iyo caa'iladu ay lahayd. kanaynu inagu ka warramaynaa kaa maaha. waxaynu ka warramaynaa waa wixii ka yimi asbaab khaarijiya. asbaabta khaarijiga ay ka timi markaa waxa weeyaan qofkoo mashkilada ku dhacday, qofka oo warwar galay, qofka oo musiibo intay ku timi musiibadii xejin kari waayey. xanuun bay dhashaa marka dambe. dunida xanuunkani wuxuu maanta ka mid yahay xanuunada ugu tirada badan leh. xanuunadan isla hadalka iyo warwarka ahi waxay ka mid yihiin xanuunada dunida ugu tirada badan leh. walidaalika waxaa la tilmaamaa yurub oo kale afartii qofba qof baa qaba bay yidhaahdaan. afartii qofe kaste yurubiyana mid baa liqa daawooyinkaasi loo liqo xanuunada nafsiga. dadku haddaanay xanuunka wada qabin ama baahidan iطmi'inaankii baa la waayey weeyaan. dadku xasilloonnidii iyo degganaanshihii qalbiga ahaabaa lumay. markaasaa warwar iyo walbahaar adduunyo israaciskan baana intiisa badan keenay. maxaa cilaaja baynu leenahay marka? maxaa dawaa ah? ugu horrayn waxaynu leenahay kitaabka qur'aana iyo sunnada nebiga calayhi salaatu wasalaam wiqaayo iyo cilaajba wuu ku soo arooray. wax lagaga dhowrsado warwarka iyo walbahaarkaasi wuu ku soo arooray oo marka horeba dafciya oo qofka laasima aanu ku dhacaynin in shaa allahu tacaala. kaa khaarijiga aynu ka warramayno. waxaa kaloo ku soo arooray wax la yskaga daweeyo oo qur'aan iyo xadiidba leh. dhowr qodob baynu markaa tilmaamaynaa. qodobka koowaad waxa weeyaan waa caqiidada islaamiga. qofka muslimkii uu ka warwariyo walbahaar yaryay qofka aan muslimka ahayn. caalamulislaamina wuu ka yaryay isagoo ka mashkilad badan, haddana wuu ka xanuun yaryay marka loo eego xanuunada warwarka iyo walbahaarka ku saabsan. iyadoo ay ahayd inuu maadaama uu mashaakilka yaalla ka tiro badan yahay uu ka tiro bato ayuu haddana ka yaryay baynu leenahay. sababtu waa maxay? sababta koowaad waxaynu leenahay waa masalatu alqadaa'i waalqadar. qofka mu'minkii wuxuu rumaysan yahay oo caqiidadiisa ka mid ah alqadaa' waalqadar. wuxuu raalli ku yahay ilaahay qadihiisiyo wixii uu qoray. wixii dhaca wuxuu garanayaa wax rabbi qoray inay ahayd. qofka mu'minka ahi carruur ka dhimatay, xaas ka dhintay, shaqo uu waayey, makaano uu waayey, warwarkiiyo walbahaarka ay ku abuurtaa xanuun kuma noqdo. in western society waddannada reer galbeedka waxaa caanka ah recessioniskan dhaqaale markay dhintaan intaas oo dadaba isdila. waayo boorsadii baa khasaartay uu lacagta gashaday, dabeetana waxaa la odhanayaa maanta waxaa isdilay intaasoo dad ah. sababtu waa maxay? boorsadii lacagta khasaartay meelahan suuqyada lacagta. markabu soo raraabaa degay inay waashaan oo dhakhtarka la dhigo iyo inay isdilaan labada midubaabay noqotaa. inuu kaws kaga siiyo oo intixaar uu sameeyo suicide, iyo in waali dhakhtarka lala dhigo. ama qofka muslimka ahi inkastoo ay xanuun ku beerayso hanti uu waayey ama qof uu jeclaayo ka geeriyooday ama kan, laakiin durbadiiba wuxuu rumaystaa in rabbi qadaray, dabeetana wax weyn kuma noqoto. alqadaa waalqadar iimaanka la rumeeyaa markaa wax badan buu ka taraa. shayga labaad aynu leenahay wax badan buu ka taraa waxa weeyaan aliimaanu bilyowmi alaakhir. oo qofka mu'minka ahi wuxuu rumaysan yahay wax kastooo dhibo oo la timaada adduunkuba inuu wax yar yahay oo macno badan la lahay. wax qiimo leh markaad weydaaba dee la naxaa. laakiin adduunka gebigiiba nebigu wuxuu leeyahy calayhi salaatu wasalaam low kaanat addunya tacdilu cinda allahi janaaxa bacuuda maa saqaa kaafiran minha shurbata maa. xadiidkii imaamu tirmidi warinaya sheekh alalbaanina saxiixa ku tilmaamaya adduun dhammaantiiba ilaahay agtii hadduu garab kaneeca ka leegaya, kaneeca la qaybqaybiye
kaneecana walba wax faa'iido lahayn ayaa haddana la qaybqaybiyo waxa la tilmaamay garabkeed adduun dhammaantii baa la yidhi hadduu kaneeco garabkeed ilaahay agtii ka joogo qiimayntaa leeg hadduu ka leeyahay gaal koobiyaa kama siiyeen baa la yidhi gaal lagama waraabiyeen idan qofka mu'minkii wuxuu rumaysan yahay adduunkuba qiimo loo warwaro wax garab kaneeco ka yar dee looma waasho saa daraaddeed qofka mu'minkahi wuxuu rumaysan yahay aakhiro waxa ka mida waxyaabaha buufiska reeba ducada badan iyo tasbiixda badan oo nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay qofka ku ducaysta اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال إلهي سبحانه وتعالى وكفر فرح وأنا الدعاء دي النبي عليه الصلاة والسلام ولبتن وحيد هذا والدعاء وقائية قفك كل دعايستكم وبدعه وحكم إذا بيع علماء ضيد هذا إن هذا حصوصته أدونك تكون شيء لبكستوك هستمد كارد بدنين وجره qoladani cilaajka nafsiga samaysa culimada psychology-guna waxay yiraahdaan waa cognitive bay yiraahdaan therapy waa qofka in la qanciyo ama se inaad rumaysato aswa ihtimaalaat qoladan dadka dawaysa psychiatry-ga iyo psychology-gu dadkooda bukaynta isugu yeedhaan meel ayuu dhakhtarku dhex fadhiistaa dabeetana mid walba waxa la yidhaha dhibtii iyo mushkiladii ku qabsatay ka warran markay isaga warramaan qaar bay arkaan dabeetana qofbaa wuxuu isidhahaa warin adiga waxba kuguma dhicin kuwanbaa balaaya qabsatay midba markuu mid kale balaayo ka sii weyn ka warramo waa ariiqay u cilaajiyaan dadka mardaaga ah ee ikti'aabku depressionku hayee loo keeno waxyaabaha wax lagu daweeyo waxaa ka mid ah xusnu dhan qofka warwarkiiyo walbahaarkani ku dhaco marar badan mala xun buu qaataa dabeetana wax walba wuu ka shakiyaa inaad maxmalka fiican saarto dhakhtar baa tagtay dhakhtarkii baad hore weyday waxaa laga yaabaa inaad tidhaha inuu ila kulmaa baanu doonaynin ama ninkan waa isnacno inuu daweeyo mar rabo wakhtigii waa gaadho waxaa laga yaabaa inuu faylkaagii waayo uu daydaeyo waxaa laga yaabaa in gaadhigii uu soo socday traffic jam dhacay aanu meeshaba soo gaadhin waxa laga yaabo xusnu dhanni haddaad ku xambaarto warwar kugu hayn mayso haddaad se mala xun markiiba sii qaadato warwar bay kugu reebaysaa walidaalika baa ilaahay wuxuu inaga nahiyey yaa ayuha aladiina aamanuu ijtanibuu kaiiran min adanni ina bacda danni isma waxaynu u baahannahay oo ka mida waxyaabaha nolosha lagu daweeyo dhibtu markay dhacdo sida loo tasarrufo oo ah inaad u arag mushkilaadka wax weyn ee inaad u aragto shalay baan waxaan idiin tilmaamayey axad الصaalixiin la yidhi nin baa la yidhi wuu ku xantay dabeetana sida caadiga ahayd waxay ahayd inaad cadhooto de marka lagu yidhaha waa lagu xamanayo qoladaasaa ku maagayso waa lagu hadalayo waxaasay kaa sheegayeenoo dee waxaad odhan lahayd war waa layga taagla'ayay nimankaas duulkaasi waa duul layga taagla'ayay laakiin waxaan idhi intuu socday hadiyad qaaday ayuu u geeyey ninkii fidhiniya waxaa la ii sheegay waxaan u baahnaa maalinta qiyaamaha inaad tarto xasanaadkaagii baad qaybi siisay dee anna hadiyadda baan kuga abaalgudaya hadiyadda tan qaada buuri xantii wuxuu u arkay inay tahay dee nin xasanaadkiisii wax ka bixinaya wixii uu shaqaystay salaadii iyo soonkiisii qayb ka miduu kuugu deeqay intuu ku xamanayey waayo aakhire waxaa la yidhi dee marka laysu soo tubo qof walba qofka kale waa looga goynayaa oo xasanaadkaaga dadka loo qaybinaya haddii xasane laga waayana sayi'aadkood idan haddaad si fiican u fakarayso depressionku iyo cadaadisku qofka kuma dhaco waxaa ka mida baynu leenahay qofku inuu garto amal ina maca alcusri yusra nolosha inaad amal dhigin inaad garato dhib kasta oo jirta in berrito sayajcal allahu bacda cusrin yusra in ilaahay subxaana wa tacaala u fudaydinayo waxaan ku soo koobayaa wakhtigoos ka kooban daraaddeed qof kasta uu xanuunku ku dhacay waxaan leenahay dhakhaatiirta la xidhiidh atibada nafsiga ahi waa dhakhaatiir wax daweeya idan waxaan idinkula talinaya waxa weeyaan kow qofka mu'minkii haddee masaa'ilkan khaarijiga iyo uu iska daweyn karaa laakiin kuwan iyo kuwa kaleba haddaad la tashato tabiibkaaga waliba khaasatan waxaan jeclaan lahaa tabiibka nafsiga inuu tabiib nafsi oo muslima noqdo waayo kaasaa garanaya sida aad u fakeraysa rasmiga maskaxdu hadday si qaldan u fakerto
waxay soo daysaa awaamir qaldan ama qanjidhada jidhka ku jira dheecaamada soo daaya waxay soo daynayaan dheecaamo qaldan oo ama dheecaan loo baahnaa inuu soo baxaabaan soo baxaynin dabeetana jidhku siduu wax u maamulaya qaldamaya ama dheecaan quantity yar looga baahnaa buu jidhku dheecaan badan ka soo daynayaa dabeetana jidhku siduu u shaqaynaysaa qaldamaysa xanuunada nafsigii intooda ugu badan haddaad qarsatana xanuun cudwiyana way sameeyaan calool xanuun bay keenaan rheumatism bay keenaan wadna xanuun bay keenaan maxaa la yidhahaa sonkorow bay keenaan blood pressure bay keenaan kullu dalik xanuun nafsigi wuu keeni karaa bay culammadu yidhahdaan marka intaad xanuun nafsiyo fudud iska dawayn lahayd hadhow yaad la eedaadin dhiikar iyo kaadi macaan ama wadna xanuun yaad la eedaadin xanuunku waa isku wada mide waxaad u baahantihin haddaad buufis dareento iyo haddaad buuq dareento haddaad seexan weydiyo hadday cadhadu kaa badato haddaad cadho badan dareento haddaad shaki badan dareento haddaad wax maqmaqasho sidii qof codaduun maqlaya ama in la xamanayo haddaad midaba aragto qof uun ishiisu mararka qaarkood dad hayru caadiya wax arkayaan marar badan baanay jibinkan iyo waxaan ay isu sheegaysaan ahayn ay yihiin xanuun psychological oo u baahan inaad dhakhtar tagto idan ikhwatii fi lcaqiida ugu horreyn waxaan ku leenahay caqiidadaada saxo waa sax wardigaaga badiyo dikrigaaga laa ilaaha ila allah subxaana allah alxamdu lilah salliga nebiga badso waa lagu degaa cibaadaadkaaga badso rabbigaa kalsoonidiisa badi basharka iyo waxay walaaqayaan ilow intaa kadibna haddaad daawo u baahantahay isdaawee waa yar dhakhtarta